wacan oo wanaagsan kuna soo dhawaada barnaamijka maada iyo madadaalada oo maalin waliba jimcahadan oo kale aad ka dhagaysataan radio-ga inta waalan iyo waalidkood. waxaan idin soo tabinayaa Cabdullaahi Xarbi iyo anigoo ah mataanta jecel jawiga xamar. barnaamijka sidiisuna waa maadees iyo sheeko marna hees ku wareerin ee maskaxda gan ku dhagayso. barnaamijka sidiisaba muran ha ka keenin madaxana ha isaga daalin. qodobada aad ku dhagaysan doontaan waxaa ka mid ah fanaanka ugu caatada badan fanaaniinta Soomaaliyeed ee Dayaxdal Nuurshe ayaa la saadaalinaya inuu guurkiisa kadib dhowr kiilo ku kordhi doonto hase ahaatee wuxuu xajisan doonaa booskiisa caatanimada 10 sano ee soo socota guurkiisa kadib. fudeed badan ee farmaajo ayaa si lama filaan ah u magacaabay ra'iisul wasaare iyadoo ayna shacabka ku noqotay mid kadis ah. xasan cali qeere oo loo yaqaan xasan bile ayaa ah shakhsiga uu farta ku fiiqay mudane fudeed badan ee farmaajo. xasan bile waa shakhsi howlkara waana mid ka mid ah dadkii keenay ereyga ah uf adaaka ur badan oo ku qoran baqaar kasta oo lagu qalajiyo maqaarta oo ku yaala xaafadda Xarriyaale. wararka naga soo gaaray magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in dadka reer Muqdisho ay dacwad xoogan ka qabaan dawladda Turkiga oo dhoofin ba'an ku haysa agab walba oo laga isticmaalay magaalada Muqdisho haba ugu yaraatee saxarada suuliga. waxaa sii xogaysanaya dagaalka weero Facebook oo la isku adeegsanayo hubka loo yaqaan muuqaalo toos ah amaba live videos oo ay hoosta ka afuufayaan live iyo commenting taa oo ka dambaysa in dagaalka uu sii huro sheertuna ay faraha ka baxdo. hay'adda xalinta khilaafaadka ka dhaca Facebook ee marka magaceeda la soo gaabiyo loo yaqaan blog ayaa soo saartay nuqul tibaaxaya in qofkii like iyo commenting kaga qayb gasho ay ku weyn doonto jagada ay ku leedahay Facebook taa oo lagaga jeedo ciwaankeeda. 1900 maxaa iga galadii ayay ahayd markii hay'adani ay soo saartay hadal la mid ah hadalkaani oo ay dhagaa ka xirteen wariye Cabdilaahi Cumar Ballaan iyo Amiin Caamir oo ugu dambeyn ciwaanadoodii hawada lagu cunay. kadib qarixii xooganaa ee ka dhacay magaalada Muqdisho ayaa waxaa goor habeen booqasho ku tagay isbitaal Madiina madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaana uu halkaas ku soo booqday dhaawacyadii ku waxyeeloobay qaraxaasi taageerayaasha Farmaajo ugu badan darbijiifta Soomaaliya iyo hablaha ka qadaamaysta wadanka Sacuudi Carabiya ayaa ku andacoonaya inuu madaxweynuhu jaakadiisa u siibay mid ka mid ah dhaawacyadii xanuunsanaa ee isbitaalka jiifay. waxay sitaa xaqiiqada qarsoon oo dadkii indhahooda laga daboolayo inuu madaxweynuhu kuleel dartii u wada waayo jaakadiisa una dhiibtay mid ka mid ah ilaaladiisa qaaska ah. magaalada Hargeysa oo noqotay mid lagu cabsiin karo saxafiyiinta iyo fanaaniinta aankaanixiyo.com ayaa soo saartay qormo dheer oo ay kaga hadlayso waxa ayna qormadaasi tibaaxaysaa amaba ay sheegaysaa sidan jeelalka Somaliland waxay albeerko amaba funduq u noqotay wariyaalka iyo fanaaniinta. waxa intaasi ay qormada si raacisay Somaliland ayaa xariga dadka sumcada ku dhex leh bulshada kaga gol leh in magacooda uu dhex wareego social media taa oo ay aaminsan yihiin inay u fududeyn karto aqoonsi degdeg ah oo la helo balse aan raacsaday tani waxa ay keeni kartaa in ay tahriibaan suxufiyiin ka soo jeeda ismaamulkaasi aan cidna aqoonsaneen kadibna ay social media la soo fadhiistaan oraah ka dhan ah Somaliland taa oo aan waxba ka duwanaan doonin tan Daahir Cali Sow iyo Maxamuud Carab ee haatan baraha bulshada ku hayaan sida caadada u ahba marka ay maqaska la waayaan madaxda dalka. dhagaystayaal ay ugu taagnaato halkaas iyo barnaamijkii ku dhan yahay waana heesta usbuuca iyo dooqii Cabdullaahi Xarbi iyo mataanta jecel jawiga xamar. bye bye abo aqoonkiyo diinteena qawiga ku qanaabta sheeko yarka qaado deesto lama qoonta ku suran namisteena xirata wacdi intii baqabatidin qoto qoto wadaad qoto ku tahay abo aqoonkiyo diinteena qawiga ku qanaabta sheeko yarka qaado deesto lama qoonta ku suran namisteena xirata wacdi intii baqabatidin qoto qoto wadaad qoto ku tahay